ilmaha haddaa suugadan u samayso xitaa hadduu uu kaa cunaynin khudradda aad ayuu uga heli doonaa tijaabi insha allah. Assalaamu calaykum walaalaha qaaligaa soo dhawaada kanaalka haddaa ku cusub tahay ha iloobin subscribe inaad saartid like-na dhiirigelin ayay noo tahay. Muuqaalkan wuxuu naga caawinaa inuu meel fog gaaro. tin baaqulig waxaa igu jira 1 kiilo oo hilib ah. Hilibkana waa lo. Waxaan ku darayaa basal aan soo yayareeyay iyo kabsar. waxaan kaloo ku ridayaa 1 xabo oo ukun ah, qaado yariis oo cusbo ah, iyo waxaan kaloo ku darayaa 2 qaado oo weyn oo rootiga la shiidaa. intaas ayaa si fiican iskugu qasaysaa. haddii qaadada ay kuu qasi weydo gacanta la gal insha allah. maasha allah saad u aragtiin waan isku soo qasay. waxaan kaloo ku darayaa 1 qaado oo yariis ah oo xawaaji duuduub aan soo shiiday. walaalayaal saad u aragtiin bir ayaan gacanta ku hayaa. birtaas wuxuu iga caawinayaa inaan hilibka kusoo qabsado. qiyaaska kuuskuuska inay isla ekaadaanna way iga caawinayaa. sidaad u aragtiin waan kuustay, kadibna gacanta ayaan wax yar ku caawinayaa, aan ku koobayaa, kadibna saxan ayaan si dul saaranayaa. saad u aragtiin waan soo dhamaystirtay kuuskuuska. kadib waxaa sameyn kartaa haddaa aad sarabin inaa markiiba aa karisid. saddexdaas saxan ayaan ku riday. kadibna bac ayaan dusha oga xirayaa. waayo wuxuu kaa caawinayaa haddaa aa rabin inaa isticmaasho freezerki inaa gelisid. laakiin aniga hadda maanta 1 saxan ayaan ka isticmaalayaa. qudradaas aan ugu talagalay aan ku isticmaalo. sidaad u aragtiin saxanka waxaa igu jira biringaanyo aan soo jajaray. waxaan kaloo ku shubay coriander leaf, paprika waxaa waye barbarooni oo lasoo qalajiyay ama barbarooni budadeeda. kadib waxaan sameeyey baradho ayaan dusha ka saaray. waxaan dusha uga shubayaa qaado yariis nuskeeda oo filfil madow ah iyo xawaajka la dhahayo thyme ayaan dusha uga shubayaa. kadib xawaajiyaasha hore aan isticmaalo ayaan dusha oga shubayaa mar labaad. waxaan kaloo sameynayaa hilibkii aan soo diyaarsanay ayaan dusha ka saaray. halkaasaad u aragtiin waxaan ku haystaa baaquliga biyaha waxaa ku shubay tomato pire ama tomaatada oo maaragta oo gasac ah. kadib waxaa ku shubay wax yaro cusbo ah iyo wax yaro komuun ah ama xawaaji duduub ah. waxaa kaloo ku shubi doonaa thyme iyo barbarooni budadiisa. intaas ayaan ku shubi doonaa iyo wax yaro olive oil ah. intaas ayaan isku qasayaa. kadib waxaan sameynay hilibkii iyo baradhadii iyo khudradii waxaan sameeyay ovenka ayaan geliyay. waxaan sugayaa kisto inuu noo soo yaro karo. kadib markuu noo soo karo waxaan sameyneynaa aan dusha oga shuban. sidaad u aragtiin ovenka ayaan kasoo bixiyey. alaabtii aan isku soo qasay ayaan dusha oga shubayaa. waxaan kaloo ku riday cauliflower af soomaali ma garanayo waxa lagu dhaho, iyo caanaha double creamka ah iyo cheese. laakiin markaan aan ku shubay caanaha double creamka videoga ama muuqaalkii ayaa iga go-ay. aniga dhinacayga waxay ila ahayd inaan record gareynayo, laakiin muu ii record gareyn. intaa ka raali noqda. saad u aragtiin waxaan cauliflowerga hadda gelinayaa. cheeskina waan ku shubay, laakiin muuqaalka halkaas ayuu ku ekaa. maasha allah. kadibna ovenka ayaan ku celiyey. markaan ovenka ku celiyey
sidaas ayuu noogu soo baxay alaabtan. waxaan idhi asxaabay ilmaha xitaa aan qudrada cunin way ka heli doonaan, aad ayuu u macaan badan. waxaa doontid ayaa ku cuni kartaa, kaligiis xitaa waad cuni kartaa. marka waxaan leeyahay asxaabta qaaliga ah, intaas ayaa maanta rabay inaan iga faa'iideeyo. waxaan rajeynayaa inay sheer gareyn doontiin. subscribe-na ha iloobina inaad saartiin, like-na waa dhiirigelinta.